Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeena waxa uu hadli doonaa filim lagu magacaabo Cawskii Dheeraa. Waxa uuna soo baxay sanadkii 2019. Filimkan waa filim horor ah oo cabsi iyo argagax leh. Haddaba ila soco iskana taxadar. Laba walaalo ah oo kala ah Becky iyo Cole ayaynu arkaynaa ayagoo saaran baabuur marka uu bilaabanayo filimka. Becky gabadha la dhaho ayaa waxa ay dareemaysaa xaalad xanuun. Marka waa in ay meel yara istaagaan si loo hubiyo xaaladda gabadha. Dhinacooda waxaa ku yaala beer doog dheer ah. Becky waxay maqashay cod wiil yar oo cawska dheer ka soo baxaya. Dhanka kale iyagana waxay maqlayaan dhawaqa qof kale. Waxay u qaadaan hadda labadooda wax ay go'aansadeen in ay aadaan cawska dheer iyagoo baabuurkooda hordhigaya kaniisadda si ay u caawiyaan ilmahaasi. Cole waxa uu u dhawaaqay meel fog cawska. Becky waxay tagtay iyadoo wacaysa booliska. Sidaas ayay labadooduba jidkii kaga lumeen oo doog u galeen. Dhacdooyin heer sare leh ayaa bilowday inay la dhacaan iyaga ayagoo galay cawska maadaama ay iswaayeen markay isbaadigoobayeen halka ay isugu yeeri jireen markay dareemaan in codka qofku ka soo baxayo meesha ugu dhow. Laakiin aad bay u kala fogaayeen markay dareemeen inay meel fog kala joogaan. Hadda Becky waxa ay siinaysaa fikrad Cole iyadoo kor u hadlaysa. Waxay soo jeedinaysaa in aan labadooduba ay boodboodaan isku mar. Taasi awgeed waxaynu awood u yeelan doonaa in aynu ismilicsano ama aynu is aragno. Hadda labadooduba sidaas oo kale ayay sameynayaan oo weliba way ismilicsanayaan iyagoo boodboodaya. Markii ay mar labaad boodboodeen haddana way is arki kari waayeen. Waxay ku abuurtay cabsi. Hadda waxaa la galay waqti habeen iyadoo la israadinayo. Hadda Becky waxay la kulantay nin ku jira cawska dheer. Waa kuma aabaha dhalay cunuga ka dhaxlaya cawska dheer. Waxaa halkan laga ogyahay in magaca ilmaha uu yahay Toby. Becky waxay u sheegaysaa ninkaasi nafteeda sida cunugaasi uu ugu dalbaday caawimaad oo labadooduba waxay galeen beerta cawska. Hadda habeenku halkan buu ku dhacay. Hadda ninkaasi oo la yiraahdo Rose wuxuu ku yiri Becky waa inaan wada joognaa. Dhanka kale Toby wuxuu u yimid Becky walaalkeed. Toby wuxuu ku yiri Cole sidee bay u fududahay in la qabto waxyaalaha dhintay ee barinka cawska. Waayo cawsku ma galo wax dhintay. Cole aad uma xiisaynaynin sheekadiisa. Markaasuu weydiiyey isagoo iska indhatiraya sheekadiisa sidee ku timid halkan. Hadda Toby wuxuu yiri aniga iyo qoyskeena waxaan soo booqanay kaniisaddan. Markaas waxaynu maqalnay cod nin duurka cawska ah oo qaylinaya. Waxa uu u sheegay markii ay cawska sii galeen ninkii u qaylinayay oo saddexdii niiba ayaaba kala lunnay. Toby wuxuu ku yiri Cole waan ognahay in walaasha Becky ay dhiman doonto. Markuu maqlay Cole wuxuu dareemay cabsi sababtoo ah Toby ma uusan milicsan Becky weli. Sidoo kale Cole uma u sheegin wax ku saabsan walaashiis. Cole ayaa ku yiri sidee ku ogaatay tan. Markaas Toby wuxuu ugu jawaabay waxaas dhagax baa ii sheegay. Cawskan ayaa dhagax u muujiyay taas oo wax walba garanaysa. Sheekada oo dhan ee Toby waxay ula muuqatay mid aan waxtar u lahayn. Cole wuxuu maqlaa codka Becky oo wuxuu bilaabay inuu mar kale raadiyo iyada kadib markii uu wareeray. Kale waxaa la arkayaa hal nin oo kale oo imaanaya beerta cawska ah. Wuxuu ahaa xaaska Becky oo loo yaqaano Tafaris. Marka hore waxa uu la kulmay Toby. Toby ayaa ku yiri waan ogahay inaad halkan u timid Becky. Waxa kale oo uu sheegay in Becky aanu hadda jirin oo wuxuu kale u horseeday meydka Becky. Travis wuu murugooday markuu arkay iyada oo dhimatay isagoo silsilada gabadha haysta. Travis sidoo kale wuxuu bilaabay inuu halgan u galo sidii uu uga soo bixi lahaa cawska dheer. Laakiin Travis waxa sidoo kale qabsatay dhibaato inuu ka soo baxo beerta cawska. Hadda Travis waxa uu maqlay shanqar ilmo ah oo ka baxsan cawska dheer. Ilmahani wuxuu ahaa Toby. Hadda Toby qoyskiisa oo dhamma waxay soo galeen cawska si ay u badbaadiyaan Travis. Laakiin halkan kama aysan helin Travis oo dhammaantood sidoo kale way kala socon yihiin midba midka kale. Waxay la macno tahay in Becky iyo Cole ay halkan ku joogsadeen. Toby ayaa ugu yeeray gargaar halka Toby hooyadii ay ka mamnuucday Toby inuu qof u yeero. Filimku isku dhex qasan yahay halkan bal aan sharaxno. Dhab ahaantii filimkani waxaa la sameeyay inta lagu jiro wareegga waqtiga ee ku celinta iyo dhammaan jilayaasha filimkani waxay ku xiran yihiin cawska. Waqtigan wareeggu wuxuu u socdaa sidii Toby uu ku yimid wicitaanka Travis iyo Cole iyo Becky waxay galeen beerta cawska ee wicitaanka Toby. Halka la arkay in Travis uu halkan u yimid isagoo raadinayo Becky iyo Cole. Waxay la macno tahay inay tahay meerto waqti xalxilaala ah kaas oo ku sii socda filimka muddo dheer. Aan dib ugu bilowno filimka isla goobta halka Cole iyo Becky ay soo galeen beerta cawska dheer markii ay labadooduba isku wacayeen. Markaas
codkooda waxaa sidoo kale maqlay Travis. Hadda Becky iyo Cole waxay weydiinayaan Travis maxaad halkan ka qabanaysaa. kadib Travis wuxuu u sheegay in labadooduba labadii bilood ee ugu dambeysay uu raadinayay. xaqiiqadaasna waxay ula muuqatay waxyaab leh sababtoo ah waxay halkan yimaadeen 2 maalmood ka hor oo sababtoo ah waxay ahayd wareegoodii labaad ee sii socday filimkan. laakiin meertada waqtigan waa hal xiraale qof walba haysata. inkastoo jiliyaasha la soo bandhigay ee filimkani aysan sidoo kale ka warqabin, hadda saddexdooduba waxay isku dayayaan inay meeshan ka tagaan, isla markaana waxay sidoo kale dhageysteen cod qof jooga meesha ugu dhow. Tobin Travis wuxuu ka dhigayaa inuu garabkiisa ku fadhiisto, sidaas daraadeed wuu u fiirin karaa iyaga isagoo eegaya agagaarka banaanka ee cawska dheer. Tobin isla mar ahaanta Becky waxay helayaan fariin cod ah taleefanka gacanta. qof ayaa ku hadlaya fariinta, waxa uuna yiri ha u ogolaan Cole inuu waxyeelo gaarsiiyo Travis, hana u ogolaan in ay qalad sameeyaan marar badan. laakiin waxay bilaabeen inay hore u socdaan iyagoo iska indhatiraya fariintan. caws dheer ayaa Becky laf ahaanteeda qariyay ay ku dhawaadeen inay ka soo baxaan, sidaa darteed Becky waxay ku lumisay miyirkeeda halkaasi. Cole iyo Travis waxay u yimaadeen Becky isla markiiba. dhanka kale Tobin aabihii sidoo kale halkan wuu soo gaaray. isla mar ahaanta Tobin ayaa sidoo kale u sheegay aabihiis inay sidoo kale arkeen dhismo ka baxsan cawska. isla markiiba waxaa la weeyay dhismihii loo socday. markay arkeen dhammaan waxay ku heshiiyeen inay la soo baxaan. Rose waxay u horseeday dhagax halkii ay ka qaadi lahaayeen dibadda. waxa uuna bilaabay inuu sheego faa'iidooyinka tabashada dhagaxan, maadaama Cole uu ku sugtay inuu taabto dhagaxaasi. kadib Robin hooyadii ayaa halkaas ku soo dhawaaday. waxa ay ka digtay inay taabtaan dhagaxaasi. waxay u sheegtay in Rose uu halkan ku dhaawacay oo isna wuxuu arkay Becky oo dhimatay. kuma raacsana gabadhani sababtoo ah waxay ku fikirayaan ay maskaxiyan ka xumaatay gabadhani, waxayna u sababayeen in ay halkani joogto muddo dheer. kale markii Rose bilaabay inuu ku qasbo inay taabtaan dhagaxaasi, Travis sidoo kale wuxuu ogaaday in ay jiraan wax qaldan. markaasuu bilaabay inuu ninkaasi garaaco, laakiin Rose waa laga adkaaday. Travis weli ma lumin geesinimadiisa. kadib Rose waxay burburisay madaxa hooyada Tobin, laakiin kulligood may helin meesha laga baxo. kadib waxay arkeen waxay gaareen baqaar cidla ah. waxay ka dhigan tahay in ay ugu dambeyntii kasoo baxeen beerta cawska dheer. markii Travis iyo Cole ay ku dagaalamayeen arrin midba midka kale ka dhexeeya ee dukaanka, hadda waxay si degdeg ah u fuuleen saqafka sare ee dukaanka. waxayna halkan ku eegayaan in kabixitaanka ay suurtagal tahay in lagu dhex maro beerta cawska dheer. hadda eegani wuxuu gaadhay cawska oo dhan isaga oo sii maraya godka dhulka. Travis ayaa halkan ka siibtay. Cole ayaa hal mar badbaadiyay, markaas ayuu haddana si bareer ah gacantiisa ugu sii deeyay. natiijo ahaan Travis ayaa hoos u dhacay. Tobin wuxuu eegay Cole, taas oo sameynaysa codka Rose ayaa mar kale la maqlay. Tobin iyo Cole hoos ayay labadooduba u dhaadhaceen. hadda Tobin ayaa mar kale soo galay cawska dheer kadib markii uu hoos u degay. hadda Cole iyo Becky waxay sidoo kale ku guureen buurta cawska dheer. waxaa halkan lagu arkayaa in dhammaan tallaabooyinkaas waxaa loo qaaday fariintaas aan la garanayn, kaas oo ay heshay Becky. Cole ayaana baray Travis sida ku cad fariintani. aad ayaad ugu mahadsantahay maadaama aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusubtahay inaad subscribe noo saarto, haddii aad hore noola joogtayna laagta aad